الإمام الشعبي من عالم وتابعي أها بوحل السؤال لو يدي إمام الشعبي يو هل للإبليس زوجة إبليسكو إسلام مليه وحاس مليه إمامك وحيري ذاك عرس لم أشهده أروس كان يقول متشوقين بير أروس كاس إبليس إسلام كبير ثاني متشوقين لكن قرآنك وحوش هاجي إنه أولاد ليه مر هدي أولاد لا شيغنا إسلامنا ماشي واتشوك تادي كتب التفاسير إسرائيليات بيشيغان قاركود شروحنا ما سو أرورينيان wax nas ku soo arooray ma jiro quraan iyo xadiis waxay sheegaan shaytaanku labadiisa bawdiyood ama labadiisa lugood ama labadiisa cajir Soomaalidu oo kala taqalluqadeeda midna dhakarkii baa ku yaalay dhahan midna farjigii baa ku yaal markasto uu saa isugu dhufto oo isgalaanba ukuma ka daadanaya bay yiraahdeen markaas ukumahaas dildilaacayaano awlaadi ka soo daadanaysa laakiin wax nasaho sariix oo sheegay ama saxiix ah ma jiro waa qisas israa'iliyada في بعض كتب التفاسير إنا كو أركتد وادعي كرتا إبليسكو يا شيطان كينو كهد لينو ولي مقدمة دي ما كجرا ما ملائكة كمد يحي كمد معها لبس سبب بك كمد معها وسببت كواد أبور كود يسكمد معها خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار هذه صحيحة وي ملائكة وحا لقى أبور النور بإلهي رسولك صلوات الله وسلام عليه شن كان الدبك أول الكيسة لقى أبور بإلهي سبحانه رسولك صلوات الله وسلام عليه أرنت لبعض وحويان إلهي ملائكته معاصصه لكن يسوي إلهي بعاسي الله قرآن كقورم سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أرنت حكتين التابانين وحوي محوية فرق أودحية جن إيو شيطان إيو إبليس من أبلساء بإري وكيم اللغة العربية أصل كذا وحال لنا هذا قوص الشذا يأسي قال لي ذاك المدة مقعدة وكي إلهي نحريس تتكقوست إبليس وأضيقي وحاني كسوة فرعامين شياطين تنا إبليس تنكو كمديه وكان من الجن في سورة الكهف ففسق عن أمر ربه جنكو كمديه إبليسكو جنبو كسو تشيدا لكن وننبلو بلا قادتي شيطانكنا وكو عيال السوق اي مفسدين تا اي ظالمين تا او جنكا كمد إنك هذا بني آدم كينا كو عيال السوق سو عيال السوق موريان لمدو عيال السوق ويه وموريان سو لمدو maxaa magacan gaarka asii dhaqankoodaasi ay ku dhaqmeen qaab dhaqankooda sidaan u xun taasa marka la yiraahdaa quraanka ereygan jinni wuxuu ka soo jeedaa maadada luqada carabeed asalka laga dhalaaliyo ereyga kan waxa la yiraahdaa ma khafiya wastatara wixii qarsoon ee aan muuqan la arkin baa la yiraahdaa qofka waa majnuun baa la yiraahdaa majnuun waxa majnuun loogu bixiyay laakiin aqliga baa qarsoon aqli ma jiro ilmaha yar ee caloosha ku jira maxaa la yiraahdaa jiniin urjiifka ah ee caloosha ku jira wa ta'ala ka waramay subhanahu wa ta'ala wa id antum ajinnatun fi butun ummahatikum marad ahaydeen urjiif uurka hooyadii ku jira Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala jinka saasoo kale isaguna waxa waa wax qarsoon oo inagu arkaynin sidaas jinni loo yiri Allah wa ta'ala subhanahu أفترى على الله كذبا أم به جنة والبا لوجه مركا أفكا والا جنون مجنون وإنك نرحنا مركا وحال وضع معنى هذا وحوي اختفى واستتر بأصل كجنك واساس إنه ما أركنا جنك لكن يسوون أركا محاول دليله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم isaga iyo xulkiisa reerkiisa iyo qabiilkiisu jinku way idin arkaa laakiin idinku ma arkaysaan haddana cadowgu waxan ku yahay balada ah oo ma aragtay ku raadcaysanaya waxay yiraahdaan sida ay sheegaan culimadu siyaabaa jirta lagu arko siyaabahaas waxa kamid ah inuu tashakkul sameeyo waxa ilaahay u sahlay inuu isbedbedeli karo mar dameer buu iska dhigi muuqaalkiisa mar wuxuu iska dhigi ay madow mar bisad madow mar ma sacagalay buu iska dhigi baashan Soomaalidu cashabarida tiraado buu iska dhigi ma ogtahay mar bas uu tashakulaya tashakulkaas uu sameyn karaa markuu istashakula waa la arki karaa
waxa kale oo la arki karaa kuwa la shaqaysta caalamul jinni kuwa la shaqaysta ee shayaadiinta ah waxaa farsamada yaqaana ee wax la qaybsada ee ku adeegta iyaguna waxa weeyaan waa dhici kartaa isagoo isqaabqaabeeyey inay arki karaan waxaa jira kitaaba manan akhriyey oo la yidhaahdo xiwaarun maca suxufiyin walba waxaa jinniyin baa jiray risaalo kooban oo nin suxufi oo muslima ayaa qoray uu leeyahay markaa wuu ka sheekaynayaa jinka iyo qaabku u abuuran yahay muuqaalkiisa oo qof aan darisnahayn baa xanuun qabtay dabeetana anaa la igu yeedhay anigoo suxufi baan ahaa qur-aan baan ku akhriyey jin baa igala hadlay waa muslimay wuu tegey wuu soo noqday waa iswaraysannay waxaan ka waraystay buu leeyahay jinku sidee u egyahay wallahu aclam kitaabkaasaan marka akhriyo waa risaalo waa la helayaa xiwaar maca suxufiy xiwaar suxufi iyo jinni dhex maray baa magaceeda la yidhahda wuxuu leeyahay jinku indhihiisu innagu saasay u jeexan yihiin soo maa saasay u jeexan yihiin isaga buu leeyahay walla cilmu cinda allah laftaas suxulku way dheer tahay oo laf dheer baa halkaa u taagan waxyaaba tilmaamo caynkaas oo qariib uu sheegayaa laakiin innaga hadda wax badan ba jin siduu u eegaya wax badan in kama khuseeyaanba dee shuqul isku melihin isku baab ma nihiin bini aadamkaa karaamada le baynu nahay sidaa awgeed waxaa u baahan nahay mararka qaarkood qur'aanka kariimka ah wuxuu tilmaamaa iyadoo shaytaan la cabirayo baa ilaahay tilmaamay ibliis oo shaytaan laga cabirayo baa qur'aanku ilaahay kaga warramay faazallahuma ashaytaanu canha faأkhrajahumaa mima kaana fiihi shaytaan meesha ereygaas ibliis baa loo jeedaa oo aabbaheen iyo hooyadeen xawaa iyo aadam waa ka weydaariyey jannadii inay ka soo baxaan waxaa qur-aanku sheegay bani aadamka iyo jinkuba labaduba inay leeyihiin shayaaiin baa qur-aanku sheegay ilaahay ka warramay subxaanahu watacaala wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura alla wuxuu sheegayaa insaankuna shayaaiin buu leeyahy bani aadamkuna shaytaan buu leeyahy oo labada kee daran ka bani aadamkaa daran ka shaydaanka markaad tidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaan arajiim inaad dee weydaa dhici karta wuxuu kugu wadwaday laakiin bal kan inkaarta qabee kula taagan 10 jeer haddaad shaydaanka iska naartay dee waa isagii biyo ismarinoo halkan taagan iska kaxayn kari maysid inaad sidaa awgeed ba qofku markuu macaasiya xumo ka soo baxo saaxiibbadii hore ee shayaadiinta inuu ka baxaa fiican oo baabkoodii cilaaqadooda uu jaro nebigu sala allahu calayh waali wasalam aad iyo aad buu inuu ku dadaalay in shaydaanka cadowga aynu ka badbaadno ilaahayna si fiican u caabudno caqiidadu inoo toosto diintaynu fiicnaato adduunyadeennanu ay haynoo hagaagto nebigu aad buu ina kala dardaarmay nebigu wuxuu yidhi xadiidka saxiixa ah fii musnad imaamu axmed asheekhu albaani xasan ka dhigay ina ashayطaana qaala shayطaan wuxuu yidhi wacizataka yaa rabbi rabbiyow cizadaadaan ku dhaartay la abraxu aqwi cibaadak ka zuuli maayo addoommahaaga inaan baadiyaynayo maa daamat arwaaxuhum fii ajsaadihim inta naftu ku jirto inta naftu jirkooda ku jirto ka zuuli maayo faqaala rabb alle wuxuu yidhi subxaanah isoo u jawaabaya shayطaankii wacizatii wajalaalii cizadayda iyo weyninkaygaan ku dhaarte laa azaalu akfiru lahum ma stakfaruunii allahu akbar ka zuuli maayo aniguna inaan saamaxayo u dembi dhaafayo intay dembi dhaaf i weydiisanayaan mar kastoo aad weydaariso waddadii wacnayd waxa weeyaan anigana dembigoodan dhaafaya markay toobad keenaan sidaa awgeed duruqda ugu wanaagsan ee shaydaanka laysaga badbaadiyo ayaa aynu ka hadli doonnaa qayb ka mid ah kow waxaa asal ah qofku shaydaanka iyo jinka kaga badbaadi karaa xisnu tawxiid dhufayska tawxiidka inaad geshid qof caqiidadiisu saxan tahay inaad noqotid ma ogta laakiin haddaad noqoto qof caqiidadu ka xunta oo gebigaagaba riyo iyo sheeko lagu maamulo xalay waan riyooday waxaan kuugu riyooday kun yaasiin in lagugu akhriyo bal xaggee diinta kun yaasiin kaga qoranta kun yaasiin yaa akhrin kara kun yaasiin in lagugu akhriyo ku riyooday kursiga waa helaysaa maalin baa dhowr jeer wuxuu igu yidhi warniyo waa ku doonayaa sheekh inaan wax ku weydiiyaan rabaa maantii dambaan ku yidhi wareedhe maalin walba waxaad tidhahdaa waa ku doonayaaye war bal kaale maanta ii sheeg waxaad doonayso suuqaan isku aragnayo dabeetana keriyoon buu ku shaqaystaayoo meel baanu istaagnay wuxuu yidhi sheekhu waxaan rabaa soo nin wadaada ma tiid haye bal wad baan ku yidhi islaan soo dohdaya baa igu taagane fariisin iiga akhri buu yidhi fariisin war anigu fariisintii kaakicinta ma aqaane waa maxay fariisintu sidee wadaad u tahay buu dad fariisinkaba aqoon
islaanta way ugu kacsantay iga fadhiisi buu yidhi wadaadoo dhan moogtay halkaa waa arrinta igu kaliftay kalimaadkan inaan galo siiri meesha arrintu marayso in adiga lagugula soo doontay noqotay bahashi ma ujeedaa warooy islaanta soo dohdaa ha falin baan ku yidhi gabar bay ku siisteen kaar baa qabtaay saanta ha falin iska afgaro ama duunyay doonaysaa ama xaajay doonaysaa saanta la xaajayso iskana astur islaanta haddaad yuururi soo fadhiisiso sodohdaa ay yuururto soo mushkila adduunkaa maaha marka waa mushkila cadiima sidaa awgeed ba qofku muslimka ahi xisnu tawxiid tawxiidka waa inaad gashid markaasaa nebigu wuxuu lehy sal alla alay wasalam man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fi lyawm 100 mara kelmaddaa qofka yidhaahda maalintii 100 jeer kaanat lahu cadlu 10 riqaab 10 addoon isagoo xoreeyey buu la mid yahay wa kutibat lahu 100 xasana 100 xasanaadna waa loo qoraya ومحيت عنه 100 سيئة 100 ذنبنا ولا ترتريا وكانت له حرزا من الشيطان يومه مال كيساسنا شيطان كحجاب بوكاكتشي أبو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك قف كفل بدنا مكاتشر بدن إيمان ما يقف ليمي وحي إسقو ليمي وحك بدن مويانه وأذكار أدك بدن دي أذكار أنت كبدن وكله قف كدري دي زيادة وتسمع ومركا بقول شر سبحان الله وبحمده بكدري بقول شر أستغفر الله وأتوب إليه بكدري سيدا وجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء كما تجد شيرين سدح بقولات وأخريه بقول شر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقول شر سبحان الله وبحمده بقول شر أستغفر الله وأتوب إليه صدح ذا النبي بقولات كما تيجي تشرين عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم كهدي عقيدته كحمات سوق عياري يأتي الشيطان أحدهم قفكين شيطان كبوه إيمانيا قلبي وكله الله فيقول من خلق كذا وحا يا أبوري عرك يا أبوري رلك يا أبوري بورها يا أبوري ودو أدو كوسور وريقيا سوسو سعودو وحكورنا حتى يقول من خلق ربك horta rabbiga ayaa abuuray rabbigan aad leedahay wax kasta isaga abuuray isaga laftiisa ayaa abuuray fa idaa balagahu halka haduu shaydaanku gaaro warxuma tashiilkiisa uu kugu wado falyasta'id billahi walyantahi qofku ilaahay ha magan galo ha ka joogsado marka arinta ha ka joogsado arintaasi marka dhalinyarada hadda u badanta khaasatan daraasaadka dhigtamaadiga ah diintana aan waxba ka aqoonin qofka waxa la rabaa maadiga iyo diinta inuu isku wado haddii kale waa qalalaysaa diintaadii kama qatanaan kartid muujeeda maadiga iyo diiniga isku wad maadigaagana baro diintana baro waxaad noqonaysaa marka qof isu dheelitiran oo balansigiisu fiican yahay baad noqonaysaa haddii kale dee xaalkaagu ma fiicnaanayo aqoonyahan wacan ma noqonaysid waxaa labaad xisnu did alwaswasa xisniga waswaaska dhufays laga galaa jira dadka شيطان وحاجر النبي مجيء سيجارة وشيء شيطان كان مجيء وحال إرادة خنزب خار وكردي كرت حاجة شكل أنت خنزب أنت وكوب أنت إعرابهان شيطان كاسال إذا شيطان كاس إبليس كوحوقة بالسنية ضد كإنه عبادة كوسواسية صوميد إن أراك تصالح وحلو فهماي ضد صلاة أنت حدان ما أنتم الله أكبر الله أكبر تقول حفريها ما أنتوا كوما حرنوا لي وكوع العلن مركو حده بسم الله ودح فريساني هذا بسم الله بس ما أنتوا بعض سوء تميو بس لا درك عادك واتجيسا هدو كجد به أتحياتك أفضل أتحيات غزولي هاي صادق وكتجيسا قار وحوفر يا ويسده وفر يا ما أنتوا ويسده كنا قنايا markuu dhameeyo kulay gacantan ma dhaqin waa ku celinaya qaar wuxuu dhax fadhiya istijada markuu suuliga galo istijado soo baxo buu wuxuu leeyahay qoqoyaanka inta kaaga yaal ma aragtaa kaadiba kugu dulduusha uu noqon maanta suuliga ka dhamaan maayo aakhirka qofkaas uu waalanaya si waswaaska looga baxo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkiin marka uu istinjoodo oo kaadiyo gacantiisa biyaha ku shubo farjigiisi shab ha ku siiyo biyo ha ka socdo micneedu waa maxay hadhow markaas soo baxda hadduu ku dhaho shaydaankii waxaan kaa qoqoyeen oo waa beendaas aniga biyaha ku shubaa leedahay meesha waa beendaas aniga biyaha ku shubaa meesha qofka waswaaska waa dawo nabiga inoo sheegay fiiri salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii waswaaskaasi jiro marka istijada dhamayso gacanta biyaha ku shub saa ku dheh
hadhow soo baxo warwarkan wanaab isku shubay biyaha waa dhamaatay waxaas marka nabigu waa ka waran nin saxaabiga u yimid xadiidka Uthman ibn al-Aas fi sahih Muslim ya Rasul Allah inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati ilahu ninki rasuulka ilaahi ninki shaytaanaha aniga iyo salaadaydiiba ku dhex jira naftii buu ii keenay waa dhibana wa qiraa'ati iyo waxaan akhrinay yalbasuha alayya wa isaga kay dardaraya dardari usaka dardaraya rafaatana rasuulka ilaahi faqala rasuulka sallallahu alayhi wasallam daaka shaytaanun yuqalu lahu khunzab wa shaytaan khunzab layla magaciisa nabiga inoo sheegay fiir sallallahu alayhi wasallam fa idha ahsastahu hadda dareento fata'awwad billahi minhu ilahi kama gangal subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim watful an yasarika bidixdaadana utuf thalathan saddex jeer maxaa bidixda utuf loo yiri oo midigta utuf loo oran waay macnaha ku jira bidixda wadnaha ku jira wadnahuna waa aqalku shaydaan ka soo gala qofka waswaaska ka soo galiya waa qalbiga halku ku jira shaafiiciyadu waa kuwa yiraahdo salaada marka la xidho qofku labadiisa gacmood wadnaha ha saaro culayska miisaanka ah waswaaska ku baayada shaafiiciyadu samaadan garan marka halkan bidixda isagii baa ka soo galay washu ka soo afuufayo weey saddex jeer marka hadii aad dad la tukanaysid deecan dhuufo weyn basha ku siinin dadka was dilaysaane si yaroo kooban uma sida marka qof quraan lagu tufayo kala maarta hada ninki soo dhuundhuumanayay raba inuu ku qaso saddex jeer hada tuf andaha kaga tufto nin indhaha laga tufay orod baa u yaalbay Soomaalidu wada ordi un Soomaa war ma jira marka taasina waa in lagu baraarugo oo laga diyaar garoobo ilaahay wuxuu yiri wa imma yanzaghannaka haduu ku asiibo oo ku waswaasiyo min ash-shaytaani nazghun shaytaanka xaqiisa nazghun ay nazighun mid wax waswaasiya erayga nazghi aslu lughaha marka xagga bani aadamka la eego waxa la yiraahdaa adna harakada ugu yar ee bani aadamku waswaasi kara la yiraahdaa xagga bani aadamka xagga shaytaanka marka la eegana adna waswasa baa la yiraahdaa waswaaska ta ugu yar hadii aad waswaasto fasta'id billah ilaahi magangal oo adkaarta akhriso innahu samii'un alim alla waa ku maqlaya subhanahu wa ku ogi marka alla wuxuu leeyahay wa qur rabbi a'uudu bika min hamazati ash-shayatin waxa tiraada ilaahayow shayaatiinta waswaaskoodan ka magangalay wa a'uudu bika rabbi an yahduru rabbi inay shayaatiin ugu soo xaadirto ayaan ka magangalay sida nabigu sallallahu alayhi nabigu sallallahu alayhi wasallam idha shakka ahadukum fi salati qofkin hadu salaadiisa ka shakiyo falam yadri kam salla وقرن وايو انتو تكدي ثلاثا أم أربعا صدح أم سأفر فليطرح الشك شكك هيسكتورو وليبني على ما استيقن انت اوهبه وحكوليسو ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي لما سجودها سجوده انت أنو سلاما نقصا فإن كان صلى خمسا هدو شنتو كدي شفعنا له صلاته صلاة دي سيبا يسود للتريسا وشفعي كديسا وإن كان صلى إتماما لأربع هديئو تكدد دميستر أفرنا كانتا ترغيما للشيطان وحين نقونيسا مركاسي شيطان بالله قسن دوليي بين نقونيسا حسنك صدحات حسن عند النوم مركاسي حنيسد حسن بعض الضهنت أدقشيد وآية الكرسي ده آية الكرسي ده قفك أخرية وحنبي يقول من قرأها إذا أوى إلى فراشه قفك أخرية مركو ماشي وصيحا لها يماضو لم يزل عليه من الله حافظ إلهي حقيسا ولقى إلى لنيا ولا يقربه شيطان أسو دوان ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كحقوة عند الفزع وحسن عند الفزع قفكم مركو هردada كسل له oo qarwo oo hurdadiisa qarow iyo salal iyo waxay ku jiraan hadii citaa caruurtu ay sasto xisni ba nabigu inoo sameeyay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka bari jiray erayada a'uudu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun ducada sa ilmihi loo akhrinaya haday gabartay a'uuduki haduu wiil yahay a'uuduka aan akhrin karin haddii adiga ateen wada akhrisanaysa ilaahay kalimaadkiisa taamkaan magan galaya cadhadiisa ciqaabkiisa adoomihiisa sharkooda shaydaanka waswaaskiisa shayaadiin ay ugu soo xaadirto buu nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi abdaawud baa soo saaray waa saxiix waxaa ka mid ah xisnun cinda ru'ya almakruha qofku marka uu riyo uu kan neceb yahay uu arko
mar baa shaydaan kugu ciyaaraya riyadu waa mid run ah iyo mid maanta wixii aad ka shaqaynayso aad caawa ku riyootid iyo mid shaydaanku kugu ciyaaray isagoo lagu caydhsanayo adigoo meela ka dhacaya adigoo bahalla ku bajinayaan iyo wixii la mid ah idaa ra'aa axadukum alru'ya yakrahuhaa haddii qofkii inuu arko riyo uu dhibsado falyabsuq can yasaarih bidixdiisa candhuufaha isaga tufo walyatacawad billaahi min ashayطaani ثalaaثa saddex jeer ilaahay shaydaanka ha ka magan galo wayataxawal can janbihi dhinaciisii ha iska rogo alladii kaana calayhi uu maaragtay u hurday buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam rasuulku mar kale wuxuu inoo sheegay riyadii buu inoo faallaynaya alru'ya min allah riyada wanaagsan alle xaggii bay ka ahaatay waalxulmu min ashayطaan qarowga iyo dhadhabka iyo salalka shaydaan xaggii buu ka ahaa faidaa ra'aa axadukum shay-an yakrahu qofkiin hadduu arko wuxuu dhibsado falyanfus can yasaarihi ثalaaثa maraat saddex jeer bidixda ha u tufo candhuuf uma liyatacawad min sharihaa sharkeeda ilaahay ha ka magan galo fainahaa laa taduruhu ma dhibaysa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin haddaa subaxii markaa maqaaxida lasoo fadhiisto ee shaaha iyo lacuna cabaya aad tidhaahdo war xalay waxaan ku riyoodanoo baabuuri jiiray xalay waxaan ku riyoodanoo bahali caydhsanayo maxaad uga sheekayn marka shaydaankii waa kugu quslayaa waa nin intuu ku dhirbaaxay alleda war halkan mid baa dhirbaaxay hadda nimayo maxaan sameeyaa kugu quslayaa soo mahad xala dhan buu kugu ciyaarayay marka haddaad ka sheekaysid wuuba rabaaba caawana wuu kuu kordhinayaa sidaad beri sheekada u badiso habeen dambe wuu kuu kordhina habeenka dambe hurdada waad ka waalanba habeenka shanaadna waad waalanba caadi baad u waalan ila ninaa shan habeen seexan soo waalan maayo dee maqaaxi buu kaa furanaya lagu arki maayo meelaad martay waa inaad marka ka magan gashaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah xirzun cinda alistiqaad qofku markuu hurdada ka tooso waxaad u baahantahay xirsi xir baad u baahantahay nebigu sal alay slam muxuu ahaa idaa stayqada axadukum min manaami wuxuu yidhi hadduu qofkiin hurdada ka tooso fatawada'a uu weysaysto falyastanfir ثalaaثa saddex jeer sanka fiif ha iska yidhahdo biyaha markuu weysada raacinayo faina shayطaana yabiitu calaa khayaashiimi shaydaanku halkaa sanqaroorka ah buu seexdaa waxay leeyihin culimmadu si ibnu qayim oo kale tacliiqaadkiisa uu ku leeyahay abu daa'uudka wuxuu leeyahay ibnu qayim meeshan sanka ah sideedaba shayaadiintu waa khabiid waa dad khabiid ah shaydaanku waa khabiid khabiidkuna meel khabiidana wuu degaa halkan marka duufka iyo qashinkii duufka soo raacay iyo maanta dhamboorka iyo sankii wixii gelayay halkan marka waa meesha ugu uskagsan jidhka intiisa kale waa nadiif ma gelayo halkaasuu dhex jiifanaya marka duufka iyo qashinka iyo beladaas buu dhex joogaa markaad marka weysaysato oo si fiican biyaha weysada intaa u raaciso fiif dheh isagoo hurdo duuduuban bannaanka ku soo dhacee moogta dee adoo hadda hurdo biyo lagugu shubay ka war soo boodi maysi haddaada carribba nasiib baad leedahay biyo ku saydha buu nebigu leeyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xisnun lixalli caqdi الshayطaani cinda الnowm shayطaanku qofku markuu seexanayo baabuurta in la warsheeleeya maaragta marka la rarayo xarig baa lagu xidhaa mogta warsheelle iyo waxbaa la yidhahdaa habeenkii markaa seexanayso wuu ku warsheeleynayaa sariirtuu kugu xidhay ama firaashka adi ma dareemaysid laakiin hadhow kugu soo baxaysa arrinta nebigu wuxu yidhi sal alla alay wasalam yacqidu الshayطaanu calىa qaafiyati ra'si axadikum qofkiin marka uu jiifsado idaa huwa naam markuu seexdo shaydaanku halkaa jeegada ah hadda cilmi lxadiidka waxaa la ogaaday halkan shaydaanku wuu xidhaa marka la leeyahay halkan maskaxdii baa ku jirta meesha qofku ka toosayo kana seexanaya weeye bartii buu xidhayaa marka wuu xidhi shaydaanku saddex guntimood buu ku xidhi guntin walba korkeeda wuxuu ku akrinaya oo saarayaa habeen dheer baa kuu dhiman iska seexo salaad subax ma dhowa habeenkii haddaad tahajud u kici lahayd war ma dhowe iska seexo haddaadba seexatee saacadda inaad eegta xitaa kuuma ogola wuu ku seexin faida stayqada markuu qofku tooso acuudu billahi min ashayطaan rajiim oo ilaahay xuso alxamdu lilah aladii axyaana bacdamaa amaatana uu yidhaahdo hal xarig baa furmay hadduu weysaysto xarig kalaa furmay hadduu salaad isu taago xarig kalaa furmay faasbaxa nashiiطan طayiba nafsi subaxii isagoo firfircoon oo wanaagsan ayuu toosaya haddii kale subaxii wuxuu toosaya isagoo warnio surkaa muruq iga galayoo barkintaan ka dhacan xal u malaynaya gacantaasaan tabcaan xalakeen miyaan barkaday meel bay ka dhacday waa nin xalay intuu shaydaan qaaday xarig ku kala gooyey gebigiisii ma noola markaa subaxii le warri xalay anoo caafimaad qabaan seexdayoo dhabarkaasaa lii kala gooyey lugtaasan tabcaanka
surkaa xagga maba eegi karo muruq baa iiga jira dee nin baa baabkiisi gashay haddaa iska dhicin weyda kugu ciyaari soo maaha taasaa marka nebigu ka warramaya salawaatu ullahi wasalaamu calayhi adkaarta ha ka tegin habeenkii markaa seexanaysaa xisnun qur'aaniya min ashaytaan qur'aanka waa xisni laga galo shaytaanka nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam man qara'a bilaayatayni min aakhiri suurati albaqara laba aayadoo suuratulbaqara ka mida qofka akhriya fii laylatin habeen kafataahu waa ku filan yihiin muttafaqun calayh shuraaxu lxadiid waxay leeyihiin kafataahu min qiyaami lleyl qiyaamu leyl waa kaga filan yihiin kafataahu min ashaytaan shaytaan waa kaga filan yihiin kafataahu min alaafaati waasuu aafaadka iyo xumaanta habeenkaa waa kaga filan ilahay waa ka dhowraya qur-aanka akhrintiisa waa la mid rasuulku abi dar xadiidka saxiixa ah muxuu ku yidhi ii dardaaran markuu yidhi uusiika bitaqwa allah ilaahay cabsigiisaan kuu dardaarmayaa subxaanahu wa tacaala qultu fi lamri kullih qultu yaa rasuula allah markaasaan waxaan idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow ii ziyaadi calayka bitilaawati alqur'aani wa dikri illaah ogow abu daryow qur-aanka akhrintiisa ogow qur-aanka aad u akhri dikriga iyo adkaartana badso buu nebigu yidhi sal alla alay slam fainahu nuurun laka fi اlardi wadukhrun laka fi الsamaa allahu akbar nuur bay kuu tahay adduunyada ilaahay ku saarayo ku siinayo qalbiga laguu gelinayo muuqaalkaaga iyo korkaaga ka muuqanaya nuur baa kaa muuqanaya aakhire ilaahay agtiina subxaanahu wa tacaala samada waxaa kuu yaalla kayd wanaagsan oo arrintaasuu nebigu yidhi sal alla alay slam qur-aanka in la akhriyaa la rabaa oo qofka qur-aanka ku dadaalo maalintii jus laba waxaad akhrin karta